Maraykanku waa waddanka saddexaad ee adduunka ugu dadka badan. Waxaa lagu qiyaasaa population-ka dadka Maraykanka in ka badan 328 milyan. Maraykanku waa waddanka afraad ee ugu dadka weyn leh adduunka. Sidoo kale, Maraykanku waa waddanka ugu soo galootiga badan dunida. Tirakoob la sameeyay sanadkii 2016 ayaa lagu ogaaday laguna sheegay in United States of America USA ay hooy u noqotay 47 milyan oo soo galooti. Haddaba daawadayaal, waxa aynu maanta ka hadli doonaa mid ka mid ah magaalooyinka waddanka Maraykanka, Hamtramck, oo dhacda gobolka Wayne County ee state-ka Michigan. Magaaladani waxa ay caan ku tahay inay noqotay magaaladii ugu horeysay ee Maraykanka Muslimku ka noqdo majority. Sida loo yaqaan, qarnigii 20aad waxa ku noolaa kana jiray dhaqanka Boolishiyaankii Ameerikaanka ahaa. Waxa ayna ahayd xaruntii Boolishiyaanka Ameerika. Hamtramck waxa ay noqotay magaalo soo jiidatay qaxoontiga ka yimi wadamada ay ka midka yihiin Yemen, Bangladesh, Bosnia iyo wadamo kale oo badan. Hamtramck waa magaalada ugu badan ee dad ku nool yihiin deegaanka state-ka Michigan. Isbeddelka dimuqraadiyadeed ee laga arkay magaaladani waa mid ifafaalo aan weligeed isbeddelayn leh. Markii hore waxa magaaladan sida asalka ah degay beeraley Jarmal ah. Kadib xaddi badan oo soo galooti Boolish ah ayaa u soo dhaqaaqay magaaladan ugu yaraan qarni ka hor. Haddaba Hamtramck sidee ayay u noqotay magaalo ay soo degaan soona caga dhigtaan muslimiintu? Ku dhowaad 40 sano kadib markii dhaqankii Boolishkii Ameerika moobay ay xidhiidho u noqotay Hamtramck, magaaladani waxa ay noqotay mid ay soo caga dhigtaan faamiliyo Ukrainian, Bosnian, Armenian, Albanian iyo Lebanese badan. Dadka ka yimi wadamada ayaa ka soo baxsaday rabshado, dagaalo, dulmi iyo cadaadisyo siyaasadeed. Meeshani ma ahayn mid ay fursado badan yaalaan. Dadka inta badanna waxa ay bilaabeen in ay u dhaqaaqaan magaalooyinka iyo qaybaha kale ee state-ka, halka qaar kalena magaalada ku gaadhay guul kadibna iskaga dhaqaaqay Hamtramck. 60meeyadii iyo bilowgii 1970meeyadii, soo galooti Yemeni ah ayaa bilaabay inay u soo safraan Hamtramck. Sidoo kale intii u dhaxaysay 80meeyadii ilaa 1990maadkii, soo galooti badan oo Bengali ah ayay magaaladani martigelisay. Waxa magaaladan ku tarmay muslimiintaas ka yimi labadaas waddan. 2013, magaalada Hamtramck waxa ay noqotay magaaladii ugu horeysay ee muslimiinta Maraykanku ka noqdaan majority. Hamtramck, magaalada lagu naanayso The Blue Collar City, sidoo kale waxa ay noqotay 2015 magaaladii ugu horeysay ee Maraykanka golaha deegaanka Muslimku ay ka noqdaan majority. 6 xubnood oo loo doortay golaha deegaanka November 2015, 4 ayaa Muslim ah. Runtii magaaladani waa magaalo si xawli ah u kortay, waxaana ku nool bulsho dabiici ah. Bulshada ku nool magaaladani waa qaar ku wada nool dhaqamada kala duwan. Aadaanka 5 salaadoodna waa kuwa laga maqlo magaalada. Hamtramck waxa ay caan ku tahay farshaxanka, taasina waxa ay ku tilmaamaysaa magaaladani in ay tahay guriga kala duwanaanshaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. la yaab kugu noqon mayso in aad Hamtramck ku aragtid hudheelo tiro badan oo Yemen iyo Bengali leeyihiin maxaa yeelay xagga hore ayaan kuugu soo sheegay in soo galooti badan oo labada wadan ka yimi in ay magaaladan ku badan yihiin sidoo kale daawade la yaab kugu noqon mayso ayaan filayaa haddii Hamtramck aad dhex lugaysid farshaxanka iyo luqadda Bengaaliga ah ee meel walba ku xadlan maxaa yeelay magaaladan Bengaalida Mareykanka saldhigayay u tahay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cali Aadan Cadaani xuquuqda fiidiyowgu waxa uu u dhowran yahay Cadaani Media Pro iyo dhacdo iyo dhugasho inta barnaamijkan la mid ah aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo xubnayahow guntaday xilka guud ka saaro xubnayahow guntaday